kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka siraha milatariga waa Jimco 9 bisha Julaay sanadka 2021 barnaamijkan waxaanu ku eegnaa awoodaha milatariga wadan walba oo ka tirsan caalamka maanta waxaanu ku soo qaadan doonaa awoodda milatariga wadanka Turkiga oo kamid ah dalalka ugu awooda badan dhinaca milatariga caalamka isla markaana hormuud u ah soo saarka hubka iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka Turkiga kaalintee ayuu adduunka kaga jiraa kala sareynta dhinaca milatariga caalamka waa imisa ciidamadiisa antee ayay leegtahay hubka uu haysto heerka awoodda diyaaradaha dagaal Turkiga ma bacdigi karaa dalalka reer galbeedka Carabta iyo sidoo kale Yuhuudda iyo Israa'iil waa kuwa dalalka uu isbahaysiga la yahay sidee ayay Soomaaliya iyo Qatar uga qayb qaateen awoodda la loodi karin ee Turkiga ku hogaamiye madaxweyne Erdogan dalka Pakistan kaalin noocay ah ayuu sidoo kale ka yahay qorshe Turkiga ku sameysanayo nuclear sidee ayay isku fahmeen madaxweyne Erdogan iyo madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin dhammaan jawaabaha su'aalahaas aynu ku soo gudbin doonaa barnaamijka maanta si aad barnaamijyo noocan oo kale u hesho fadlan subscribe dheh warqad TV like saar barteena Facebook ee warqad press aad baad u mahadsantiin inta aan u guda gelin inaan idiga sheekeeyo awoodda wadanka Turkiga marka hore aan faahfaahin idiga siiyo sida dawladda loo yaqaan Jamhuuriyadda Turkiga ay tahay waa wadan aad u ballaaran waxaana uu ku yaalaa laba qaaradood oo ah qaaradda Asia iyo sidoo kale qaaradda Yurub waana wadan labada qaarad kala bara Turkiga wuxuu xuduud la leeyahay Georgia Iran Armenia Azerbaijan waa dhinaca bari dhinaca koonfureedna wuxuu xuduud kala leeyahay dalalka Iraq iyo Suuriya iyo sidoo kale badda dhexe dhinaca galbeedna waxaa ka xiga wadanka Greek iyo wadanka kale ee Bulgaria waxaa kale dhinaca waqooyi ka xiga badda madow Turkiga waxaa soo maamulayay dawladii Cusmaaniyiinta tan iyo 1922 markaas oo la sameeyay dawladda Turkiga ee maanta aan naqaano dawladdaas uu sameeyay ninkii la oran jiray Mustafa Kemal Atatürk kaas oo ah aabihii ama aasaasihii Jamhuuriyadda Turkiga magaca Turkiga waa magac ka kala yimid laba kelmadood waxaana marka la fasiro ay tahay Turkiyadeena dalkan wuxuu leeyahay taariikh muddo dheer waxaana la xasuustaa dagaaladii uu la galay wadanka Greek ee ay dariska yihiin waxa ay isku qabsadeen Qubrus oo hadda u kala jabsan dhinaca raacsan Yurub iyo sidoo kale dhinac kale oo soo raacday dawladda wadankaasi Turkiga dadka wadankaasi Turkiga waxaa la qiyaasaa in hadda ay sii kordhayaan dadka haysta diinta Islaamka waxa ay warbixinadii ugu dambeeyay ee la diiwaan galiyay ay tilmaamayaan in dad ku dhow 99% ay yihiin hadda dad muslimiina magaalada Ankara ayaa xarunta wadankaasi Turkiga xarunta ganacsiga ee wadanka ahna magaalada ugu weyn waa magaalada Istanbul halkaas oo ay ku nool yihiin dad ka badan 20 milyan marka la fiiriyo qiimeyntii ugu dambeysay haddaba iminka hadaynu fiirino awoodda military ee wadanka Turkiga sanadka 2021 Turkiga wuxuu galay kaalinta 11aad ee 140 wadan ee loo tixgeliyo qiimeynta sanadlaha ee xagga awoodda military taas oo ay sameysay majalada Global Firepower waxaana markii ugu dambeysay ee la cusboonaysiiyay qiimeyntan ay ahayd 3 bishii saddexaad ee sanadkan 2021 wadarta guud ee dadka reer Turki ayaa ka badan 82 milyan waxaase wadanka Turkiga diyaar noqon kara 41 milyan iyo 800 oo kun oo ah wax ka badan kala bar kuwaas oo dalkooda difaaci kara ciidamada u hela mar walba ama dagaalada u diyaarsan ee Turkigu heli karo ayaa ka badan 35 milyan oo ah ku dhawaad 42% shacabka wadankaasi Turkiga wadarta guud ee militariga wadanka Turkiga xilligan ayaa ah 895 kun oo askari tirada hadda howl gasha ayaa 355 kun ka badan laakiin Turkiga ayaa haysta ciidamo kayd oo gaaraya 380 kun oo askari Turkiga wuxuu haystaa ciidamo qaas ah ama ciidamada sida gaarka u tababaran oo gaaraya ilaa 160 kun oo askari waxaana sanad walba gudaha wadankaasi Turkiga gaara da'da qaangaarnimada oo askarta lagu noqdo dhalinyaro ka badan 1 milyan iyo 400 kun markay halkaas marayso Turkiga wuxuu ka mid yahay dalalka ay u diiwaan gashay yihiin ciidamada ugu badan caalamka waxaana jira tiro yar oo ka mid ah wadamada dunida oo ciidamadoodu ay ku dhow yihiin 1 milyan ama ay gaarayaan marka loo fiiriyo wadanka Turkiga wadarta awoodda diyaaradaha dagaal ee wadanka Turkiga hadaynu fiirino waxa ay majaladu sheegaysaa in 150 diyaaradood oo kuwa dagaalka ay haystaan
diyaaradahooda dagaalka ee ridada dhexe ayaa 206 lagu sheegay kuwa fuliya weerarada qaaska ah. Turkigu wuxuu haystaa 80 diyaaradood kuwaas oo xamuulka loo isticmaalo, 273 diyaaradood oo ah nuuca tababarka lagu fuliyo, 19 diyaaradood oo lagu sheegay inay yihiin kuwa qaaska ee fuliya howlgallada gaarka ah, 7 diyaaradood oo ka kaca maraakiibta dagaalka, 471 diyaaradood oo helikabtarada dagaalka iyo 104 diyaaradaha helikabtarada ah, gaar ahaan kuwooda sida tooska dagaalada uga qayb qaata. Qiimeyntan majalada kuma aysan soo dirin diyaaradaha ee droonka loo yaqaano, kuwaas oo ay soo saaratay dowladda waddanka Turkiga. Diyaaradaha droonka oo wacdaro ka dhigay dagaalo ka dhacay dalal ay ku jiraan Liibiya iyo sidoo kale waddanka Azerbaijan iyo waddankaasi Suuriya oo ay ka dagaalamaan ciidamada waddanka Turkiga ayaa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu horumarsan, waxaana saf dheer ugu jira wadamo ay ugu horeyso dowladda Shiinaha, kuwaas oo doonaya in ay diyaaradahan ay soo iibsadaan oo ay Turkiga wada hadal kula galaan arrinta. Haddii aynu imika fiirino awoodda ciidamada dhulka waddankaasi Turkiga, ciidamada Turkiga ayaa ku qalabaysan wax ka badan 3,000 oo taangi. waxaa kale ay haystaan 11,630 gawaadiidka gaashaamana. madaafiicda isxukunta amaba isrida ayay ciidamada Turkigu ka haystaan 943. madaafiicda taangiyada saaran ayay ka haystaan wax ka badan 1,200. gantaalada projectka loo yaqaano ayay ka haystaan 407. Turkiga ayaa sidoo kale waxa uu haystaa gantaalo casri ah oo ay ku jiraan kuwa ugu horumarsan dunida, waxaana gantaaladaas ka mid ah kuwa ay iyadu soo saarato iyo kuwa ay ka soo iibsatay dalal ay ugu horeyso dowladda waddankaasi Ruushka. waxaa dalkaasi Turkiga uu soo daabushay bateriyada iyo sidoo kale madaxyada gantaalaha S-400 oo ka mid ah kuwa ugu caalamisan dunida, isagoo oo ka soo iibsaday waddankaasi Ruushka. waxaana gantaalada lagu tilmaamay inay xataa ka horeeyaan kuwa Patriotka ee waddanka Mareykanka. Turkiga ayaa isku dayay inuu Mareykanka kala heshiiyo sidii uu gantaaladaas oo ah kuwa difaaca waddanka Mareykanka u soo iibsan lahaa, isla mar ahaantaana uu isugu haysan lahaa labada dhinacba ee gantaaladooda. hase ahaatee xukuumadda Washington ayaa ku gacan saartay arrinta, maadaama ay cabsi xoogan ka muujinayaan in awoodda military ee waddankaasi Turkigu meel aan waxba laga qaban karin ay gaari karto. haddii aynu fiirino awoodda ciidamada dhinaca badda, waxa ay haystaan 149 maraakiibta dagaal ayuu waddanka Turkigu haystaa 16. gujiska amaba maraakiibta badda hoos mara ayaa waxay haystaan 10. maraakiibta ilaalada xeebaha Turkigu wuxuu haystaa 12. maraakiibta ilaaliya gaadiidka shidaalka ee waddanka Turkiga ayaa waxay gaarayaan 35. laakiin majaladan warbixino ka madax bannaan ayaa waxa ay sheegayaan in Turkigu uu sameysanayo markii ugu horeysay maraakiib dagaal oo isaga naftigiisu soo saaranayo, maadaama dalalka hormaray ee dhinaca hubka haysta gaar ahaan Ruushka iyo sidoo kale waddanka Mareykanka ay diideen inay maraakiib ay ka iibiyaan. dhinaca dhaqaalaha haddaynu fiirino miisaaniyadda difaaca 17,300,000 lacag ka badan ayay Turkigu ku qalabeeyaan ciidamadooda, waxaana Turkiga lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin dalalka dhaqaalaha ugu badan geliya awoodda militariga. haddaba iyadoo Turkigu uu leeyahay awooddaas military, dad badan ayaa isweydiinaya waa kuwa cadowga waddankaasi Turkiga. Turkiga ayaa dagaal kula jira kooxaha gudaha ah, kuwaas oo mar isku dayay in ay afgambiyaan dowladda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, waxaase u heliya shacabkiisa. marka laga tago kooxaha gudaha oo ay taageerayaan wadamada reer galbeedka, Turkiga ayaa cadow la ah kooxaha Kurdiyiinta oo doonaya gooneysutaag iyo inay sii wadaan dagaalada ka dhanka waddanka Turkiga. waxaa dagaal uu kaga furan yahay dhinaca waddanka Syria iyo sidoo kale waddanka Ciraaq. marka taa laga tago, waddanka Turkiga ayaa cadowgiisa ugu horeeya u arkay Yuhuudda, maadaama ay marar badan isqabteen, isla mar ahaantaana sirdoonkoodu yihiin kuwa ugu saabeynta badan ee bariga dhexe. Turkiga ayaa mar walba shaaca ka qaaday inuu garab taagan yahay walaalaha muslimiinta Falastiin, isla mar ahaantaana Yuhuudda ay tahay in laga hortago. ka sokow taas, wadamada Carabta ayaa Turkiga u arka in uu cadow yahay marka laga tago dowladda Qatar oo ay xulafo siyaasadeed iyo mid military yihiin, waxaana dalalka Imaaraadka Carabta, boqortooyada Sacuudiga iyo sidoo kale waddanka Masar u arkaan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan
mid aanan marnaba aqbalaynin in ay dunida caalam islaam ayagu iska xukumaan. khatar badan Turkiga kama filayo wadanka Iran oo ay daris yihiin, maadaama ay gaashaabuursi yihiin marka loo fiiriyo in cadowgooda koobaad uu yahay Yuhuud. Mareykanka ayaanan ahayn saaxiib joogto ah oo wadanka Turkiga ku tashan karo. taas bedelkeeda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu xiriirka ugu wanaagsan la leeyahay madaxweyne Vladimir Putin, hogaamiyaha muddada dheer ee wadanka Ruushka ayaa Turkiga kula jira heshiisyo, waxaana la aaminsan yahay in xukuumadda Moscow aysan raalli ka ahayn in weerar lagu hujuumo maamulka Ankara. sidoo kale Turkiga cadowgiisa koobaad ayaa waxa uu yahay wadanka Greega oo ay xadud leeyihiin isla mar ahaantaana ay horey u dagaalameen. dalalka Greega iyo Turkiga ayaa dhowr mar ku sigtay inay foodaystaan. dalalkan ayaa horey ugu dagaalamay Qubrus oo hadda laba qayb loo qaybiyay, waxaana dalkan Greega uu gaashaanbuursi ka haystaa wadamada midowga Yurub, taas oo dhinaca kale wada hadal kula jira dowladda Turkiga xilli Turkigu sugayo muddo dheer wada hadallo ugu biirayo midowga Yurub. marka laga tago isbahaysiga Turkigu leeyahay wadamada Iran, Ruushka iyo sidoo kale wadanka Qatar, waxa uu sidoo kale isbahaysi buuxa leeyahay wadanka Soomaaliya. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa horey xariga uga jiray mid ka mid ah saldhigyada ugu waaweyn ay banaanka ku leeyihiin, waxaana Muqdisho u arkaa meel ay saldhiga doonaan. waxa uu dhawaantan ku dhawaaqay inay Soomaaliya ka dhisi doonaan saldhigayda ay xakameed ka diraan. Soomaaliya ayaa waxa ay u tahay istiraatiijiyad weyn madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, maadaama dalkan uu ku yaalo meel istiraatiiji isla mar ahaantaana u muhiimsan ganacsiga badweynta India. Turkiga xogtiisa military iyo horumarka uu dhinaca sirdoonka iyo hubka uu ka gaarayo ma aha mid halkan lagu soo koobi karo, laakiin dhawaantan waxaan idin soo gudbin doonaa insha Allah warbixino la xiriira in aynu qiimeyno awoodda ciidan walba oo Turkigu leeyahay iyo sidoo kale xog walba oo ku saabsan qorshaha muddada dheer ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo sida dunida ay uga faalooto arrimahaas. barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa. barnaamijka lamid insha Allah intaan ku kulmi doono. nabadgelyo.